أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaal ku soo dhowaada janalka kaahiya balaas haddii aad janalka ku cusub tahay sabskraib saar gambaleelkana furo muuqaalkana laagareey asxaabtada la wadaag mahadsanidin bismillahi raxmaani raxiim waxaan bartanka uga jirnaa casharadii imtixaanaha ahay maadada xisaabta jabtarka koowaad ee trigonometry form 4 waayahay at the end of this lesson learner should be able to casharkan markuu dhammaado bartaa maxaa laga rabaa inuu xalli karo example 1.13 and 1.14 labadaas example inuu si fiican u yaqaano ayuu casharkan ku baran doonaa hadduu alla yidhaahdo example 1.13 simplify each expression fududay tibix kastoo ka mid a tibxaan soo socda number a waxaa la isiiyey cos squaran 7x minus sin squaran 7x number b sin 15 degree ku dhacsan cos 15 degree solution de marka solution waxaan soo qaadanaynaa number a ah cos squaran 7x minus sin squaran 7x aan soo qaadanaynaa waa number a aan soo qaadanaynaa cos squaran 7x minus sin squaran 7x we know that waxaan naqaano lagu soo baranay cos 2x inay la mid tahay cos squaran x minus sin squaran x double angle marka la joogo cos xagasheero double angle saddex qaaciday leed mid ka mid ah waxa waaye cos squaran x minus sin squaran x waayahay x iyo a haddii la yidhaha xagasha wax farqiga uma dhexaan cos 2a is equal cos squaran a minus sin squaran a cos 2 theta is equal cos squaran theta minus sin squaran theta isku mid waaye waayahay waxaan samaynayaa marka meeshan waxaa yaala cos squaran 7x minus sin squaran 7x fiiriya qaybtan iyo qaybtan isuma eko cos iyo cos minus iyo minus sin iyo sin square square meeshi x heeday 7x ka naqata ya meeshi x heeday oo ahayd cos squaran x ayaa cos squaran 7x ka naqata marka qaybtan iyo qaybtan waa isku mid waxaan u celinaynaa maadaama qaybtan isku mid tahay dib aan u celinaynaa cos 2x aan u celinaynaa booska x waxaan ku bedelayaa 7x aan ku bedelayaa 7x ayaan ku bedelayaa waayahay cos squaran 7x minus sin squaran 7x soo qaado waxay la mid tahan leenahay muga cos oo double angle la mid tahay cos 2x maan dhihi laynay booska x 7x ma taalo 7x ku bedela meeshaas then kadib labadan isku dhifo 2 times 7 cos 14 cos 14x waa kaas shaqadii maasay ku dhammaanay waa fududahay waa inaad midaan inay ka timaado double angle inaad fahamtid cos 2 ma la yidhaaho x mii laga dhihi lahay meeshan x maanta 7 la socda 7x raacsi labadan isku dhifo 14x khalaas waa dhamaatay number b nagii sin 15 degree ku dhacsan cos 15 degree ayaan haysanaa we know that waxaan naqaanaa sin 2a is equal to sin a cos a sin double angle waxaan naqaanaa inay 2 sin a cos a ay ahayd waa sin iyo cos isku dhacsan meeshaan maxaa yaal sin iyo cos isku dhacsan laba shay haddii isku dhacsayin kala horumari dooru wax dhibaato ma keento su'aala laba lagu dhiftay saddex iyo saddex lagu dhiftay labo isku mid waaye soo ma meeshaan muga cos oo double angle ah waxay la mid aheeday 2 sin a cos a booski a 15 degree yaa taal a maanta waxay la mid tahay 15 degree meeshaana 15 degree laakiin 2dii inta tiilaa halkaa ka maqan mushkiladu meesha ka jirto meeshaan 2 ah ka maqan maxaan samaynaynaa marka 2dii halkaan ka maqnay inaan soo raadino waaye meeshaan 2da ka maqan inaan soo raadino waaye maxaan samaynaynaa marka multiplying by 2 over 2 aan ku dhifanaynaa midkaan aan waxaan ku dhifanaynaa halkaan 2 over 2 sababtaan ugu dhifanayna maxay tahay 2 over 2 laba haddii loo qaybsho laba waa halna multiplicationka waxaa la yidhaha asal maduursho wax ma bedeliyo sidaa darteed 2 over 2 aan ku dhifanaynaa waxaan soo qaadan marka sin 15 degree ku dhacsan cos 15 degree ku dhacsan 2 over 2 sababtaan 2 u dooran waxaa waaye meesha inaan 2 hadhow 2da qaacidadaanka soo saarano waayahay stepka xiga waxaan leenahay 2 over 2dan soo deji gudaha soo geli meeshaan 1 ku heraa kor marka kor 1 ku heraa haddii 2da inta lagu xejo 2 lagu dhifto 1 waa 2 over 2day ku soo laabanaya marka hal 2 aan gudaha soo dejinaa inta 1 ku heraa 2da hoosena boos kar iyo aale gudahan waxaa soo gala marka 2 sin 15 degree cos 15 degree intaan waa double angle-ka
2 waa tanaa waa 2 sin waa kanaa a booskeri waxa waa 15 a booskerina waxa waa 15 intaan maxay la mid tahay marka cos 2a cos waxay la mid tahay sin 2a cafwan sin 2a sin 2 soo qaado marka a booskeri 15 ku bedelo intaan samaynaynaa halkaana keen marka intaan soo qaado 1/2 soo qaado 1/2 soo qaado intaan maxay la mid tahay waxay la mid tahay sin oo dhib angle maano waxaa soo qaaday marka sin 2 intaan waa sarrifayaa intaan waa sarrifay sababto intaanay la mid taha intaan iyo intaan waa isku mid soo ma intaan waa sarrifay waxay la mid tahay marka sin 2 a maan dhihi lahay a maxaa booska a maxaanaysa dhaha sababto eedan iyo eedan iyo eedan waa isku mid maan wax inta yaal wax inta yaal wax inta yaal isku mid waaye a booskeeda 15 haysanaa marka sin 2 a maan dhihi lahayna sin 2 ku dhacsan 15 degree naqanaysaa 15 ayaan ku dhifanaynaa stepka waxaan samaynaynaa 1/2 waan soo celi times 2 times 15 labaan isku dhifo waa 30 sin 30 degree sin oo 30 degree special angle waa la yaqaanaa waa half 1/2 ay la mid tahay 1/2 waan soo qaado times halfkan intan waxaa ka imaanaya 1/2 half kadib koree isku dhifo cosine isku dhifo 1 times 1 waa 1 2 times 2 waa 4 1/4 aa soo baxaysa jawaabta lamber b waxaa soo baxaysa 1/4 jawaabta example 1.14 example 1.14 na keena sigane right waxaa qoraysa ha lay dhahay sin 3x in term of sin x sin oo 3x laysi xaga sheer tahay waxaanu qoraysaa in term sin x sin x bisa qoraysaa xagasha x bisa qoraysaa double angle lama rabo triple angle lama rabo waxaas oo dhan lama rabo xagasha x bisa la rabaa in laga dhigo waaya solution aan leenaha waxaan leenaha marka sin 3x waxay la mid tahan leenaha sin 3x aan kala jabeynaa 3x intay ka timid 2x oo lagu daray x lemaano 3x ugu yimid waa 2x oo lagu daray x kale 3x ma naqayso waa kala jebinaynaa marka sin ee dhahno 3 aan lagu kala qaadaynaa waa 2x plus x halkan marka la joogana sin a plus b naqay eedaydu waa 2x b-dayduna waa x laag sin a plus b waxay u ekaanaya marka sin a plus b formkeeda yeelanaysaa waaya ku furfuraya marka sin 2x plus x soo qaado sin a plus b maxaa la dhihi jira sin a cos b plus cos a sin b la dhimi jirno meesha a dhihi jirta 2x ka dhig meesha b dhihi jirta x ka dhig maxay naqan marka sin 2x ku dhacsan cos x plus cos 2x ku dhacsan sin x sidaasaan u furfuray bis intaan le soo qaado marka left qaybtan oo right hand side ka soo qaadanayna qaybtaasaan ka shaqaynayna waxaan soo qaadanay sin 2x ku dhacsan cos x plus cos 2x ku dhacsan sin x maadaama ay bejka naga dhamaaday bejka xiga nagey waa intaan qaadanayna intaan noo soo qaad bugga xigaan geysanaynaa maxaan wadanaa sin 2x ku dhacsan cos x plus cos 2x ku dhacsan sin x intaasaan wadanaa soo ma halkaan fiiri marka meeshaan markii la joogo halkaa markii la joogo waxbaa ku jira meesha sin oo double angle waa kana fiiriya sin double angle waa naqaanaa cos double angle waa naqaanaa labadaasaan ka bedelaynaa labadaas waa sarrifanaynaa labadaas sin 2x waxay la mid ah 2 sin x cos x cos 2x na saddex qaacido lahay waxaan qaadanaynaa midii sinta ku jirta sababtoo maha sina u badan 1 minus 2 sin square x aan qaadanaynaa 1 minus 2 sin square x aan qaadanaynaa haye we make substitution by using waxaan samaynaynaa ku bedelasho by using aan ku isticmaalayna sin 2x inay la mid tahay 2 sin x cos x sin 2x kan waxaan ku bedelanaynaa 2 sin x cos x cos 2x na waxaan ku bedelaynaa 1 minus 2 sin square x soo ku cadeeyo waa ku cad yihiinba ku bedel marka qaybtan kor noo soo qaad sin 2x ku dhacsan cos x plus cos 2x ku dhacsan x waa soo qaadan le wax ma bedelin waaga halkaan toogan bedela iyo xabadkan double angle kan bedela labadaas sin 2x booskeed waxaan ku bedela 2 sin x cos x costan waa soo qaada waa kana plus de cos 2x waxaan ku bedela 1 minus 2 sin square x sin x na waa soo qaada waa taasa range colorka kula gal kartaa colorka waa waxa la bedelay midka madowgana waa kii meesha ku haray then costan waxay ku dhacsan tahay intaan sintan waxay ku dhacsan tahay intaan maadaama isku dhacsan yihiin haddii cos lagu dhifto costan cos bisay ku dhici kartaa kana sidoo soo laabanaa
waxay naqeen marka 2 sin x cos ku dhifo cos square x soo baxay plus halka maadaama minus taala sin x intay ku dhacee kadibna intay ku sii dhacee sin x lagu dhiftay 1 waa sin x minus sin x lagu dhiftay 2 sin square x 2 da soo qaad sin square iyo sin marka la isku dhiftan waa sin cube x waa ila haysaa soo ma ha marka xiga mar labaad ay waxaan samaynayaa substitution waxaan bedelanayaa cos square x cos square x aan bedelanayaa cos square x muxuu lamid yahay ku bedelanayaa 1 minus sin square x qaacidadas hore u soo baranay idan waa lagu bedelanayaa 1 minus sin square x ayuu lamid yahay ku bedelanaynaa waayahay ku bedel cos soo qaado 2 sin x soo qaado 2 sin x cos square bedel booskeeda bixi intaan ku bedel 1 minus sin square x plus qaybtan kale wax la bedelaa mala sida soo celi mar kale waxaan leenahay muga 2 sin x kan iyo 1 minus sin square x isku dhacsan yihiin see la isku dhifaa muga 2 sin x soo qaad 1 ku dhifo sida ku soo laabanay minus 2 sin x soo qaad sin square x ku dhifo halkaana kee marka waxay naqeen muga 2 sin x muga lagu dhifto 1 waa 2 sin x minus 2 sin x muga lagu dhifto sin square waxay naqeen 2 sin cube x sin x iyo minus sin cube x ne sida hore u soo laabanayaan waayahay stepkayga waxaan samaynayaa like terms wixii isla isxagmari like terms wixii isla isxagmari yaa like terms noqdo marka 2 sin x waxaa like term la noqday sin x sababtoo jibaarama wataan waana sin jibaarama wataan sidoo kale 2 sin cube x iyo 2 sin cube x ikana waa cube waa like terms isleeyihiin stepkayga waxaan samaynaa wixii like terms isku darsanaa horgalahan 2da soo qaad inta horgala 1 ku dar waa 3 sin x abba iga soo qaad waa 3 sin x amba si kale aan u dhahno 2 sin x marka lagu daro 1 sin x waa 3 sin x ay naqayaan meeshaana 2 sin square marka lagu daro 2 sin square waxay noqonaysaa 4 sin square sababtoo kan waa minus kan waa minus way isku darsamayaan laba number hadday isku calaamihiin way isku darsamayaan calaamad door ina qaadanayaan hadday kala calaamihiin way kala jarmayaan kuwiin calaamadiisa la qaadanaya qaacidadaas la qaataa marka maadaama minus iyo minus way isku darsamayaan minus ina qaadanayaan minus 4 sin cube x halkaa waxaa ku dhamaanaya example-ka asigana 1.4 end dhamaad daawadayna sharafta badan oo haddii ay tahay markii ugu horreysay ee channelkaa soo booqata fadlan subscribe noo dheh gambeelkana furo si kuu soo gaaraan casharo taya leh muuqaalkana laag noo saar haddii aad se hore noola joogto muuqaalkan noo laagaray commentigana noogu reeb tale tusaale waxaad haysid